Ninkani waa maalqabeen milyaneer ah oo yaraantiisii laga soo helay god qashin. Lama yaqaan hooyadii iyo aabihii toona. Carruurta iskuulka la dhigata ayaa ku aflagaadeyn jiray wasakh leh iyo wiilkii qashinka laga dhexelay. Isagoo 12 jir ah waxa uu farsameeyay 100 kombiyuutar. Sababta uu maalqabeen u noqday iyo qoyskii soo korsaday si aad wax badan uga ogaato. Like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan, siina faafi muuqaalkan mahadsanid. Faraday Fijaris waa wiil madow Mareykan ah. Noloshiisu marna caadi ma ahayn oo waxa uu ku soo koray si adag. Saacado kadib markii uu dhashay 1989, inta sanduuq lagu daboolay ayaa lagu riday meel qashinka lagu duugo oo ku taal aagga Bandal ee baadiyaha gobolka Florida. Nathan Fijaris oo ah fuundi guryaha dhisa iyo xaaskiisa May Fijaris oo ahayd haweeney beeraley ah ayaa fasaxooda tegi jiray konteenarada qashinka lagu ururiyo. Waxay ka raadsan jireen waxyaabaha la soo tuuray ee laga yaabo inay isticmaali karaan, waana halka ay ka soo qaateen wiilka Faraday Fijaris. Lamaanahani marna maalqabeeno ma ahayn, waxay weligood ahaayeen qoys xoogsato ah oo soo korsaday carruur badan. Waxay soo qaateen Faraday oo 2 maalmood oo kaliya jira, iyagoo u soo xanaaneeyay sida cunug ay dhaleen oo kale. Iskuulka ayaa la geeyay markii uu 7 sano jiray. Waxa uu ahaa ilmaha kaliya ee aan aqoon hooyadii iyo aabihii. Waxa loo diiwaan geliyay magaca Nathan Fijaris oo ahaa ninka soo korsaday. Carruurtu waxay ku aflagaadeyn jireen wiilka qashinka, wasakhlihii la soo helay iyo cunugii la soo tuuray. Waxa uu sheegay in waagii uu iskoolka dhiganayay ay carruurtu inta ay qabtaan kadibna ku ridi jireen konteenarka qashinka, isla markaana ay ku qosli jireen. Faraday Fijaris waxa markii ugu horeysay isagoo 9 jir ah la siiyay kombiyuutar duqoobay oo aan shaqaynayn. Wuxuu ku guuleystay inuu markii dambe dib u kiciyo, taasi oo ka dambeysay inuu meel sare ka gaaro tiknoolajiyadda. Wiilkani markii uu 12 jir ahaa ayaa la ogaaday hibadiisa tiknoolajiyadda. Waxa uu ku mashquulsanaan jiray hagaajinta kombiyuutarada xumaaday ee iskuulka, halka carruurta kale ay iska ciyaari jireen. Agaasimihii qaabilsanaa waxbarashada iskoolada oo la yaabay firfircoonidiisa, waxa uu ka codsaday inuu hagaajiyo 100 kombiyuutar oo ciladoobay. Waxa uuna halkii saac ku qaadan jiray $12. Markii uu 15 jir ahaa, waxa uu gaaray horumar weyn, waana xilligii uu go'aansaday inuu isaga tago waxbarashada si uu u bilaabo ka ganacsiga cilmiga kombiyuutarka. Tallaabadaas oo ay ka naxeen waalidiintii soo korsaday. Waxa uu sheegay in waalidkiisu ay ku qanacsanaayeen inuu waxbarto si uu mushahar u qaato, balse isaga hamigiisu waxa uu ahaa inuu isbeddel naadir ah la yimaado. Ganacsigiisa ayaana maalinba maalinta ka dambeysa sii ballaaranayay. Waxa uu ikhtiraacay qalabka la socda dhaqdhaqaaqa bini'aadamka, kaasi oo ku iibiyay lacag gaaraysa $200,000. Sidaa ayayna ku soo bilaabatay milyaneernimadiisu. Sanadkii 2011, Faraday Fijaris oo 22 jir ah waxa uu noqday qofkii ugu da'da yaraa ee badrooni ka noqda shirkad qaabilsan isgaarsiinta. Waxa uu leeyahay hay'ad maalgelisa waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka, isla markaana caawisay qoysas iyo carruur badan oo tabaalaysan. Shirkadiisa isgaarsiinta ee Fijaris waxay noqotay shirkadda kaliya ee qaabilsan isgaarsiinta ee uu leeyahay qof madow ah. Milyaneerkani waxa uu guursaday sanadkii 2015. Waxa uu haystaa hal gabar oo kaliya. Waxaana sanadkii 2014 geeriyooday aabihii soo korsaday ee Nathan Fijaris, markaasoo maalqabeenkani uu ku mashquulsanaa horumarinta 80 barnaamij oo software ah.